كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعشركii 233 qaybtii 6 ee dardaaranada iyo ducooyinka barnaamijkeenii barbaarinta ubadka. waxaynu maanta qaadan doonaa dardaaranka 5 iyo ka 6 iyo ka 7 iyo ka 8. dardaaranka 5 aynu bixinaynaa waxa weeye qarsu muxabbatillahi wa rasuulihi waalmu'miniina fii qalbi litifli, in ubadka qalbiyadooda markaa lagu beero maxay jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jacaylka nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo jacaylka markaa dadka markaa mu'miniinta ah. waa in ubadka loo sheego baa la yidhaahdaa, macnaha inuu dee u ogaado oo u fahmo oo u dareemo nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo xilli kasta uu ku jiro, habeen iyo maalin, macnaha waa maxay gelin hore iyo geli dambeba uu haysto. ilaahay in loo sheego marka inuu yahay ka isaga arsaaqayo, macnaha wax kasta uu siinayo, ilaahay ka isaga caafimaadka siiyey inuu yahay, wax kasta uu ogolaaday, sidaa in maxay loo jeclaysiiyo weeye. sidoo kale maxay in loo sheegay nabi maxamed inuu yahay rasuulka markaa dee naga soo saara markaa mugdiga ee iftiinka diinta islaamka quruxda badan markaa ina soo gaarsiiyey markaa. waa maxay noo kala caddeeyey dee dariiqa saxda iyo dariiqa markaa khaldan. waxa la markaa walowlaa bacda allahi lakunaa min ahli nnaar. haddaan nabigaan maanta soo bixin, nabigaan markaa jiri lahayn, diintaas aan markaa ina soo gaari lahayn, dadku markaa ahlu naar bay noqon lahaayeen. dardaaranka markaa 6 waxa weeye sicatulbaali wa cadam. barbaarintu waqti bay u baahan tahay, dulqaad bay u baahan tahay, shay badan bay u baahan tahay. marka waxaa la waalidku waa inay arrinta waxaa la markaa maxay ay aan degdeg iska ilaaliyaan. marka arrintan ay ka dhigaan baa mid waasaco ballaaran markaayo macnaha degdeg ka markasta aan degdeg aanay samayn ee markasta ay ku dadaalaan marka arrimuhu si u kala muhiimsan yihiin ay ubadka markaa ay u sameeyaan marka oo aayar wixii ay u qabtaan waxa la waa maxay iska ilaaliyaano arrin ballaaran meesha maxay marka ay ka dhigaan baa loo baahan yahay. dardaaranka 7 waxa weeye qarsu alkhawfi min allahi subxaanahu wa tacaala waalmuraaqabati lah. ubadka waa in qalbiyada markaa sidoo kale lagu beero inay markaa cidda ay iska ilaalinayaan ama ay ka baqayaan ama ay mar kasta ogaanayaan inay markaa arkaysto wax kasta ay inay tahay markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. ee aan markaa booliisna la odhan iska ilaali, waalidkana macnaha waa maxay aan la odhan, cid kale oo asxaab iyo family cid kale aanu iska eegine ee marka koowaad qalbigiisa lagu beero cidda dadka markaa qulubtooda ee arkaysa ee maqlaysa ee la socota inay markaa tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tahay ee cabsidaa markaa saa loogu sheego. dardaaranka 8 alxirsu calaa tacliimi aladkaari wa tacwiidihim calayha, in ubadka markaa lagula dadaalo in markaa adkaarta nebiga iyo ducooyinka nebiga ka soo arooray in markaa lagula dadaalo laguna tababaro markaa. adkaartaasi waxay si markaa uga ilaaliyaan macnaha shayaadiinta jinka iyo insa waxyaabahaas markaa si markaa maxay uga ilaaliyaan markaa waxyaabaha ugu sii muhiim adkaarta oo dee daily lifekiisa ku xidhan mar kasta uu samaynayaa, wax kastuu qabanayo inuu bishinka uu ku bilaabo, hadduu markaa cuntadii hadduu cunayo oo kale mar kastana maxay inuu mahadnaqa ilaahay alxamdulilah inuu isticmaalo kelmadiisa afkiisa mataqaan lagu tababaro in maxaa yidhi alxamdulilah, allahu akbar, subxaana allah, bishinka waa bismillah uu yidhaahdo. meelaha yaruu sameeyo markuu ducada guriga ka baxayo, guriga markuu soo gelayo, markuu seexanayo oo kale, markuu soo kaco oo kale, hadduu maro cusub soo qaato oo kale, hadduu markuu dee banaanka aadayo gaarigi waxaa marka uu raacayo oo kale, iyo waxaa maxay adkaarta kale faraha badanba ayaa markaa waa maxay ubadka yar loo baahan yahay in lagu tababaro. marka saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaayo macnaha waxay ogaanayaan ducadan akrinayaan markuu baxayo ilaahay qofka ilaahay isu dhiibaya, arrimihiisu dhiibaya, tala saaranaya, hadduu cunayo, hadduu cabayo, hadduu saadayo. marka waxyaaba waan iyadana taa maxay lagula dadaalo marka haddii xataa ubadkaan la samayn karayn maalin kasta hal ducada xifsid baa ku filan. ducooyinka dad dheeraato xataa iyadoo waxa laga yaabaa inay markaa xadiis inuu kusoo aroortay markaa kooban baad heshid, marka taasaad markaa u samaynaysaa. ducooyinkan inta badan aad baynu u naqaana meelaha inta badan laga heli karee kitaabka ilaahay markaa xisnul muslimka ama dhufeyska qofka muslimka ducooyinkiisa kaasoo kale qof
maxay ku helaysaa moodankiisa ku shuban karaa uu dhegaysan karaa isagoo la duubay xataa jira Soomaali lagu duubay hata la heli karaa halkaas qofku ma sha Allah ta'ala maxay ubadka uga heli karaa intaas afarta ku jirnaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam